ridan oo lagu magacaabo Lincoln ayaa loo doortay maayarka magaalada Vermont oo ku taala xuduudda wilaayadda New York kadib markii ay ka codbadatay xayawaano kale oo la tartamayay. Doorashada ayaa waxa codeeyay 2500 oo ruux oo kamid ah dadka degan magaalada yar ee Fairhaven. waxaa la loolamay Lincoln 15 kale oo xayawaan ah kuwaasi oo u ordayay jagada odaynimada ee degmadaasi. waxaa kamid ah haybsad lagu magacaabo Cecil Towell ee la yiraahdo Steel Hebler iyo Jill la dhaho Krista. Lincoln waxay ku soo baxday 13 kamid ah wareegyadii doorashada iyada oo ka hormartay ee lagu magacaabo Sammy Figure oo 12 sano jira. haddaba ridan 3 sano jirka ah loo doortay maayarka magaalada aadka u degan ee Vermont ayaa waxa ay ka qayb gali doontaa shirarka golayaasha deegaanka, kulanada bulshada iyo xafladaha heerka sare ah ee ka qabsama magaaladaas yar. Fairhaven ma laha maayar bani aadam ah. maamulaha degmada ayaa u sheegay jaridada Rutland Herald inuu ku fikiray in la doorto maayar aan bani aadam ahayn oo xayawaanada la rabaysta. waxa uu sheegay in arrintani dhaqaale loogu ururinayo garoon kubadda cagta oo ay magaaladu yeelato balse waxa la ururiyay $100 oo kaliya. Lincoln ayaa xafiiska la wareegaysa maalinta Salaasada ah ee soo socota. haddaba arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay rag kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Mareykanka oo ay kamid yihiin senataro ku jira sharci dejinta waddankaasi ayaa soo dhaweeyay talaabadan waxayna guul u rajeeyeen ridan loo doortay maayarka halka sano xilka haynaysa. Vermont waa magaalada labaad ee ugu dadka yar sidoo kale waxay kaalinta lixaad kaga jirtaa magaalooyinka ugu baaxadda yar marka laga hadlayo dhanka dhulka ee guud ahaan 40 maamul ee uu ka kooban yahay Mareykanku. Fairhaven waa magaalo yar oo cagaaran oo aad u qurux badan sidoo kale waxay leedahay kala dambeyn dhanka sharciga iyo deris wanaag. Maxamed Maax Faaliyaha qaranka Hayajex.